Jilaa gaadhigiisii laga xaday isaga oo filim jilaya. Baabuur uu leeyahay xiddiga Hollywood-ka ee Tom Cruise oo nuuciisu yahay BMW ayaa laga xaday isaga oo duubaya filim uu matalayo. Waxaanay arrintaasi ka dhacday magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska. Atooraha ayaa magaaladan ku matalayay qaybtii 7aad ee filimka Mission Impossible. Wargeyska The Sun ayaa sheegay in baabuurkaas oo uu leeyahay Tom Cruise laga xaday hudheel uu degan yahay ee Grade dhexdiisa, isla markaana ay saarnaayeen alaab qiimaheeda lagu qiyaasay kumanaan ganiga sterliinka ah. Hase yeeshee, booliska West Midlands ayaa sheegay in baabuurkaas oo nuuciisu yahay BMW X7 laga xaday wadada Churches Street maalintii Salaasada, laakiin muddo kooban kadib ay booliska soo heleen. Waxaa laga helay baabuurka magaalo u dhow tii laga xaday, waxaana haatan socda baadhitaan oo waxay boolisku eegayaan kaamaradaha wadada ku xirnaa muuqaaladii ay duubeen. Qaybo dhan oo ka mid ah suuqa weyn ee Great Central ee ku yaala magaalada Birmingham ayaa Axaddii ilaa Arbacadii loo xidhay filimkaas. Dhanka kale, dad badan oo jecel atoorahaas ayaa aad uga hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin in ay arkaan xiddigaas filimada matala. Mar uu tegay maqaayad cuntada dhaqanka Hindiya lagu sameeyo, ayuu halkaas kula kulmay 2 askari oo ka tirsan booliska taraafikada. 2 askari ayaa ayaguna sawir ay la galeen atooraha ku baahiyay baraha bulshada, iyaga oo yidhi waa xaqiiq oo sawirkaani ma ahan mid kumbiyuutar lagu sameeyay ee waa qudhiisa.